Cabitaankan wuxuu ka takhalusayaa dilayaa sokorta dhiigga. Cabitaankana wuxuu caloosha kuu dhuubayaa, lafaha ayuu kuu dhisayaa, roomatismada ayuu la dirirayaa. Sidoo kaleeto gabadha dhiigga ku dhaco aad ugu wanaagsan yahay. Haddaad tahay dadka nabraha finduubka wejiga kule, geedkan wuu ka takhalusayaa. Waa geed nicmo ah aan lacagna joogino marka adeeganaysid suubis lagu siinayo. Haddaba geedka aan intaas oo waxtara iyo ka badan leh oo aan ka hadlayno waxtarkiisa waa geedkan aad u jeedaan. Badankiina waa garateen baan filaa. Kow, lafuhu dhisaya, sokorta dhiigu ka takhalusaya, nabraha wejiga ayuu haaraha iyo wuxuu kaa baabi'inayaa mamadowga. Haddaba waxaan ka samaysanaynaa cabitaankii koowaad. Geedkan magaciisa waxaa loo yaqaanaa barsali ayaa la dhahaa ama ba'tuunis. Si fiican ah isaga soo dhaqaysa, waxtarkiisana gadaala aan kusii faahfaahinaya. Kow, cabitaanka dhexda kuu dhuubaya, lafaha kuu dhisaya aan hadda sameynaynaa, roomatismada caabuqyada kala goysyada gala ka takhalusaya. Sidoo kale waxaan ku shubnay halkan waxa loo yaqaano, waxaan ku daraa jab oo ah sanjabiil fresh ama mid qalalan waxay aad haysatid. Haddaad tahay qof qaba dhiig karka, kuma fiicna gansabiisha, in yar oo beenbeena ku dar, laakiin sokorta waxba kama dhimayso. Cabitaanka sokorta ka takhalusaya wuu noo soo socdaa. Kan dadka dhexda dhuubaya haddaad tahay, miisaanka ayuu dhimayaa, lafaha ayuu kuu dhisayaa. Oo geedkan hadda mirahan aan jarjarayno waxa waaye waa koostada cajab waaye, iyada dhan iron, nafaqo, calcium ayaa ku jira. Geedkan vitamin K iyo calcium iyo potassium ayaa ka buuxa. Lafaha uu kuu dhisayaa, roomatismada ayuu la diriraa. oo haddaad tahay qof roomatism qabo ka takhalusa, nacnaca qalalan ayaan ku shubayaa iyadoo fresh haddaa haysatidna waa ku daraysaa. Runtii cabitaankan haddaa cabtid cajab. Liin dhanaanta difaaca jirka ayay dhistaa, waxay la dirirtaa fayrasyada, caabuqyada oo aaday ugu wanaagsan tahay caafimaadka. Haddaa rabtid liin macaan ayaa ku darsanay, laakiin qof iscateynaya haddaad tahay liin macaan kuma darsanaysid. Runtii geedkan nafaqo, fitamiino wax ka maqan maba jiraan oo waa geed mucjiso ah. Waxaa ku daraysaa haddaad tahay qof iscateynaya, qaado khal ah ku daraysaa, laakiin qof caadiya haddaad tahay kuma daraysid. waa shiidaysaa. Cabitaankan khatar waaye. Sidoo kale geedkan saan kuu sheegay wuxuu aad iyo aad ayuu wuxuu ugu fiican yahay. Hadda cabitaankan waa iska miire, kii koowaad waa noo diyaar. Geedkan sokorta dhiigga ayuu dilaa oo dadka sokorta qaba aad ugu fiican yahay. Koosta ayaan ku daraynaa oo koostada saa ogtihiin sokorta dhiigga kor uma qaado. Marka hadda cabitaanka dadka sokorta qaba u wanaagsan aan sameynaynaa. Haddaad waxaa soo jarjaray geedka loo yaqaano barsali ama ba'tuunis. Kan waxaa waaye asxaabta waa begel aada isaga soo dhaqay asaga dhankoo waxa waa calcium, nafaqo socota. Saliidda laga sameeyo begelka tinta way dheeraysaa, aaday timaha ugu fiican tahay, ku dadaala. Runtii geedkan cajab. Cabitaankan haddaa cabtid sokorta dhiigga ayuu ka takhalusaa. Waxaan ku daraynaa koostada waxay ka takhalustaa waxa loo yaqaano sokortaada kor uma qaadayso dhiigga. Runtii subxaanallah, geedkan loo yaqaano barsaliga waa geed mucjiso ah. Waa geed aan lacag joogin oo suubis baa lagugu siinaa markaa cuntada samaysanaysid. Weelkii aan hadda cabitaankii hore kusoo shiidnay ayaan ku shubaynaa, waayo waa isla cagaar. Marka waxaa kaloo ku darsan kartaa cabitaankan liin baa ku dari kartaa, laakiin haddaa qof gaas tahay qaba tahay iska ilaali. Geedkan asxaabta cabitaankan waa soo shiidaynaa, cajab waaye. Cabitaan kale noo soo socda. Geedkan subxaanallah asaga dhan nafaqo socoto waaye oo waxaa ku jira antioxidant ka hortaga unugyada kansarka. Ilaahay naguma rida inta qabta ha ka caafiyo. Geedkan aad u jeedaan maado waxaa ku jirta xanuunada kansarka la diridha oo kaa ilaalinaysa. haddaad salaatada ku darsatid isagoo sidiisa cabitaana ka samaysatid, cabitaan kulul ama qabo wuxuu rabo ha ahaadee, geedkan gurigaaga yuu ka maran. Kasoo qaad gabar dhiigga ku xanuunsataa tahay, geedkan caleemihiisa soo jarjaraysa. Ama waxaa tahay qof uu ku jiro xameetida
dhagaxa yaryar oo ku dhasha. Kan weyn waxba kama qaban kara, laakiin hadduu dhagax yaryar kaaga dhasho wuu kaasoo gurayaa. Biyaha ku shubaynaa, dabkaan saaraynaa. Sidoo kale geedkan keliyaha ayuu nadiifiyaa, jirka wuxuu ka saaraa biyaha siyaadada oo jirka uusan u baahnayn. Subxaanallah, geedkan waxaa ku jira folic acid aada u tiro badan. Hooyada xaamilka wuu u fiican yahay. Geed nafaqa waaye isaga dhan, waxaa waaye subxaanallah, lafaha ayuu dhisayo. geedkan calcium, vitamin K1 iyo vitamin K2 baa ku jira. runtii geedkan cajo mucjiso waaye. waa soo karkarinaya, dhowr daqiiqa dabka ku haynaya. cabitaankan gabadha markuu dhiig ku hayo aada ugu wanaagsan yahay. subxaanallah, oo waa geed aada iyo aada ugu wanaagsan. waad miireysaa, liin dhanaan baa ku dareysaa iyo malab waxaad jeceshahay. geedkan subxaanallah wuxuu u fiican yahay 95%. wuxuu ka takhalusaa nabraha, waxyaabaha madmadow oo wajiga iyo jirka kaaga yaala. sidoo kale nabraha oo findoobka ama wixii qofba waxba u yaqaano findoobka la dhaho ayuu ka takhalusaa. cabitaankan liin dhanaan baa ku darsanay, malab baa ku darsanaysaa. runtii haddii ay rheumatismada dadka ay hayso, dadka lowyaha ay xanuunayaan ama lowyuhu adag yihiin ama caabuqyada uga jiraan, geedkan idinkula talinaa. karso, cab, shiido, wax kasta ku darso, salaatada ku darso. geedkan waa geed mucjisa oo aan lacagna jooginin, aada iyo aadna ugu wanaagsan. asaga dhanba fitamiino iyo calcium iyo magnesium iyo vitamin Z baa geedkan ku jira. subxaanallah, asxaabta, geedkan haddii aad nabro kaaga yaalaan wejiga, findoob hadday kaaga yaalaan oo nabrahan oo kale aa haysatid, wuu ka takhalusaya. maxaa sameynaya? waa soo tumay, in yaraa soo tumaysaa, waxaa ku dareysaa malab, waxaa ku dareysaa jab yaroo liin dhanaana. jirka, wejiga, meesha nabruhu kaaga yaalaan waa laasimaysaaye. wuuba la diriraa nabraha, mamadowga, haaraha, waxa dhan wuu ka takhalusaa. waa geed mucjisa, asaga dhan waa geed fitamiina, nafaqa, vitamin C, vitamin A, folic acid baa ku jira. indhaha aragooda xataa wuu u fiican yahay, kelyuhu u fiican yahay, maqaarka aada iyo aada geedkan baaduuniska ama baarsaliga la yiraahdo ugu fiican yahay. war maxaa wuxuu u fiican yahay dheefshiidka ayuu u fiican yahay. subxaanallah, waa geed aada iyo aada u wanaagsan. wuxuu ka takhalusaa duhuunta ku jirta jirka. haddaba videoga like dhahaya, ka faa-iideysta. geedkan waa geed mucjiso caafimaad ayuu leeyahay. geedkan ka faa-iideysta.